waxaan salaamayaa dhammaan martida ka soo qayb gashay kulankan waxaan ku salaamayaa qof walba mansabka iyo maamuuska uu ku fadhiyo salaan kadib Allah ayaa mahad leh oo inoo suurageliyay inaan habeenkan oo isdhexgalka halkan iskugu nimaano sidoo Faisal sheegay habeenkan waa sanadkii labaad aan qabanay sanadkii hore kaliya waxaan ku tijaabinay bangiyada sanadkan sidaad marqaati ka tihiin waa ka ballaarinay oo waxaan u yeernay marti sharaf kala duwan si ay marqaati ugu noqdaan habeenka isdhexgalka ururka bangiyada Soomaaliyeed inta kadib kelmadeyda aad ay u kooban tahay waa soo dhaweyn iyo mahad celin iyo ujeedka halkaan aan u fadhino haddii aan ku hormar ujeedka halkaan aan u fadhino sida aad boorka ka aragtaan waa habeenka isdhexgalka ururka bangiyada Soomaaliyeed sharaf ay tahay inaan idinku soo dhaweeyo anigoo ku hadlayo ururka magaca bangiyada Soomaaliyeed ahna gudoomiye ku-xigeenka ururka bangiyada Soomaaliyeed waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad maadaama aad soo ajiibteen codsigeenu ahaa inaad nagala soo qayb gashaan habeenkan aad ku quruxda badan sidoo kale waxaan mahad celinayaa dhammaan tiimka soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan oo aan caawa fadhino waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin tiimka ugu horeeya Yaasiin iyo tiimkiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته